Somaliland ayaa maanta Hargeysa waxay ku soo bandhigeen warbixinta rasmiga ahayd ee ay ka qoreen qaabka ay u dhacday doorashada Somaliland waxaana si lamid ah warbixintoodii hordhaca ahayd ay ku sheegeen in doorashada Somaliland ay ahayd mid si wanaagsan loo soo abaabulay una qabsoontay waxa markaa la yaab noqotay in Michael Walls inta Somaliland ku soo noqdo toona arrin doorasho jirin arrintii doorashadu dhamaatay mar labaad soo saaro war saxaafadeed oo arrintaasi kaga hadlaayo war saxaafadeedkaas oo isugu jiray eedeymo uu xisbiga wadani u soo jeedinayo xidhiidh uu ka Underage voting was a problem in all elections in Somaliland. It's not an easy problem to deal with. inkastoo mid ka mid ah xisbiyada Somaliland ay doodoodu tahay in la bedelo guddiga doorashooyinka I'm very well aware that at the moment there is a debate going on across party lines as to whether or not the Electoral Commission will be replaced. Those are political arguments, and as far as they're political, we don't have a position on them. But we would urge, from the point of view of the practicality of retaining knowledge on electoral processes. goobjoogayaasha caalamku waxay sheegeen inay la socdaan dood ka dhex taagan xisbiyada oo ku saabsan in la bedelo guddiga doorashada iyagoo sheegay in arrintaasi ay u muuqato muran dhanka siyaasadda oo aanay doonaynin faraha inay la galaan balse tala ahaan waxay soo jeediyeen in aanay wanaagsanayn in mar kastaba lagu degdego bedelista guddiga doorashada arrintaasina ay meesha ka saarayso khibradda intiisa arrinta xisbiga khusaysa ee uu gefka ka galay waa arrin aan xisbigu ka hadhi doonin level kasto ay leedahayna uu gaarsiin doono hadii Ilaahay raahdo insha Allah laakiin waxaan ka xunnahay inuu xidhiidh sameeyay ceeb ma aha inaad xidhiidh samaysaa inuu dad gaar ah ku xidhan yahay oo xidhiidh la lahaa dadka badidoodu inay kulmiyeen yihiin arrinta ahayd inuu ka jawaabo oo iska bari yeelaa